Yaman shacabkii ugu horeeyay ee Carbeed lagu aqoonsaday dhulka Yaman waxa la oran jiray qoomka reer Saba waxaana laga helay taariikhdooda oo faahfaahsan looxaan laga soo saaray godad la faagay sida muuqatana waxa ilbaxnimadooda hor u ka weyn sameysay oo awoodoodu weynaatay oo dhulal badan isku kala bixiyeen muddo gaaraysa 11 qarni oo ka horeysa dhalashada Ciise waxaan haddaba waqtigooda ku kala qiimin karnaa 4 qaybood dhismayaashii Macrib biyo-hireenkii Macrib waxa uu biyo-hireenkaasi waraabin jiray dhul baahidiisu dhan tahay 9600 hektaris halkii hektar waa 10,000 oo mitir oo laba jibaaran waxa biyo-hireenkan burburiyay duufaankii Arim akhri suuradda 7 aayadda 15 iyo 17 halkaas ayaa ka fahmaysa qarniyadii gudbay ka hor sanadkii 650 ee dhalashada Nabi Ciise horteed waqtigaas boqoradooda waxa lagu magacaabi jiray Maqrabu Saba waxaana magaalada u ahayd Sarwa oo hadda burburkeeda yaalo meel maalin loogu socdo dhinaca galbeed ee Macrib waqtigaas waxa la sheegaa inay reer Saba awood weyn yeesheen oo aad u balaariyeen ilaa ay gaareen heer ay ummado gumeystaan gudaha dhulalka Carabta iyo meelo ka baxsan intaba waqtigoodii ayuuna bilowday dhismaha biyo-hireenka weyn ee loo yaqaan biyo-hireenka Macrib oo magac weyn ku leh taariikhda Yamaneed laga bilaabo sanadkii 650 ka hor dhalashadii Nabi Ciise ilaa laga soo gaaro sanadkii 115 ka hor dhalashadii Ciise muddadan waxay ka tageen magacii Maqrabu Saba waxaana loo aqoonsaday madaxweynaha Maliku Saba waxayna magaalo madax ka dhigteen Macrib waxaana burburkooda yaala meel 60 meel u jirta Sanaa dhinaceeda bari muddada laga bilaabo sanadka 115 ka hor dhalashadii Ciise ilaa laga soo gaaro 300kii Ciise dabadii muddadaas waxa hukunkii reer Saba qabsaday qabiilada Himyar oo dumiyay waxayna caasimad ka dhigteen magaalada Ridaan waxayna ku bilowday hoos u dhac iyo burbur dawlado waaweyn oo aridiyay iyo ganacsigoodii oo fashilmay darteed muddada ka dambaysa sanadkii 300 ee Ciise dabadii ilaa islaamku galay Yaman muddadan waxa Yaman ka dhacay hasilooni daro iyo inqilaabyo hubeysan iyo dagaalo qabiil oo dhaawacay awoodoodii ilaa ay taasi sababtay inay madax banaanidoodii waayaan ilaa Roomaaniintii soo galeen dhulka Yaman kadibna sanadkii 340ka amxaaradu qabsatay dhulka Yaman iyagoo taageero ka haysta Roomaanka ayna sii hukumayeen ilaa sanadkii 378 Ciise dabadii sanadkaas ayaana Yaman iska ceyriyeen amxaarada laakiin waxa dhacay in biyo-hireenkii weynaa ee Macrib uu daldaloshmay kadibna uu dhacay dadka weyn ee Quraanku sheegay wuxuuna ahaa dhacdo weyn oo keentay in magaalooyinku isu bedelaan lama deegaan oo shucuubtii kala carartay sanadkii 523 ayuuna Yusuf Danawas al-Yahuudi qaaday duulaan balaaran oo ka dhan ah dadkii Kiristaanka ah oo isku dayay inuu diintooda ka sab kaga saaro oo Yahuudiyo ayna diideen ilaa uu qoday godad dab lagu shido oo dadka holacaas ku tuurayay mana uusan kala saarayn caruur dumar iyo ragtoona dadka uu dilayna waxa lagu tilmaamaa 20 ilaa 40,000 arintanina waxay sababtay inay ka areysiiso imbaradorka weyn ee Roomaan ilaa uu ku gubaabiyay amxaaradu oo u diyaariyay doonyaha dagaalka marka amxaaradu ay qabsadeen Yaman markii labaad ay sanadkii 525 ayada uu hogaaminayo Aryood kadibna waxa gaadmo ku dilay Abra oo la wareegay hogaankii amxaarada Yaman waana ninkii intuu dhisay kaniisad weyn isku dayay inuu Kaabada dumiyo dadkana uu ku khasbo inay kaniisadiisa u soo hajiyaan sida inoo imaan doonta insha Allah kadibna Yamaniintu waxay kaalmo ka raadsadeen dawladda Furus ilaa ay amxaaradu ka saareen dhulkoodii sanadkii 575 laakiin waxay durbaba noqdeen mustacmarada hoos timaada Furus oo ka tirsan Furus oo Kisra uu u soo diro hadban hukumo oo reer Furus ah sidaasay ahaayeen ilaa islaamku galay Yaman oo maamulihii ugu dambeeyay oo la oran jiray Baadaan oo islaamay sanadkii 638